qodobo ayaa jira ilmahaaga waalidow waliba gaar ahaan hooyooyinka halkan fadhiya ayaan aad ula hadlayaa waxa jira ilmahaaga aad u taagla'dahay ama aad ku mashquulsan tahay ama aad wixii aad rabtay eed ka rajaynaysay ka gaabiyey waxyaabo adigu aad sabab u tahay oo burburiyo oo ilmaha nafsadiisa iyo niyadiisaba jibiyo oo baabiyaa jira gaaladu markay tarbiyada ka waramayaan iyo caruurtooda si ay u rabeeyaan waxay ka dhigtaan micyaar ama qiyaas waxay ka dhigtaan xikmad afkooda ku noqonaysa a broken hand works but not a broken heart gacanta jabtaa marka la kabo way iska shaqaysaa inay qabataba laakiin qalbi jabay ma shaqeeyo qalbi jab hadduu dhaco ma shaqeeyo waxa kowka waxyaabaha ilmahaaga qalbigiisa iyo nafsadiisa aad ku jabinayso eed ku burburinayso waliba hooyooyinka hawsii badnaatee cayda ilmaha la caayo daqan yahow dhaandhaan yahow sagagarad yahay maasuuqad waa kow ogow oo ilmahaaga adiga oo xabad ku dhuftay ayay ka dhigan tahay 70% tarbiyadaasi noocaasihi waa mid fashilan oo aan ilmaha sidaa ku soo koray kob caleen la weligii ka soo durdurin laba waxyaabaha ilmahaaga ku niyad jabinayso ee nafsadiisa iyo niyadiisa ka dila waxa kamid ah isbarbar dhiga inagu malaha dhiirigelin baynu naqaanaa walaalka miyaanad arkay walaalkaagan kale eeg in adeerkaa eeg in abtigaa eeg habarwadaagaa eeg reerkan jaarkeena caruurtooda eeg isbarbardhig almuqaarana tudammiru alatfaal way baabiisaa ciyaalka saddex jacaylka ilmahaaga shuruudda aad kaga xidho anu waxaan idhahdaa kalgacalka waalidka ee maslaxadda haddaad waxaa soo qabato waan ku jeclaanaya waliba kuwa yeeran haddaad waxaa samayso haddaad aamustood halkan fadhiisato oo aanad buuq iyo qaylo samaynin hawshaasaa gacanta ku hayaa waan ku jeclaanaya jacaylkaasi maaha jacayl waa maslaxad ilmahana wuu baabiiyaa waxaa ka mid a waxaan jirin u sheegid ilmahaaga ood macluumaad qalada siiso waxaa ka mid a masalan oo kale inaad ku tidhaahdo ilmaha yar waadi waashay soo hadalkaa iskama dhinaanada jeer waadi waashay maad waalane waad miyir qabtaa waa macluumad qaladood ilmahaagii u gudbisay waxaa ka mid a raggu ma ooyaan inanka intuu ooyo kale inaad ku tiraahdo raggu ma ooyaan raggu way ooyaan nebi maxamed baa ooyi jiray sala allahu calayhi wasalam abubakar bay sifooyinkiisa kuwa ugu waaweyn ka mid ahay inuu markaasi oohin badan yahay ilaahay baa ammaanay ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa tutla calayhim yakhiruuna liladqaani sujada way ooyayaan oohintu waa noocyo waxaa la yidhaahdaa albukaau min alfarax oohinta farxadda albukaa min alxusn oohinta murugada oohinta farxadda oohin baa jirta istusnimo iyo la yidhaahdo riyaa mid xanuun iyo xumadi keentaa jirta mid mahadcelin iyo shukri uu keenaa jira mid ilaahay khashyadiisa iyo cabsida alle loo ooyaa jirta toddobadaa nooc bay oohinta dadka runtii culimada ahee aadka bukaaga uga warama ku soo ururiya waxaa ka mid a qodobadii ilmahaaga baabiinayey hankiisa oo aad disho iyo hanjabaadda labaan kuu kala jaraya madaxaan ku goynaya waan ku gowracaya dhiiggaagaan cabbaya so waxaa lama idhaahdo waa alid badan baa idhaahda lix waxaa ka mid a waxyaabaha ilmahaaga hankiisa baabiinaya waxaa ka mid a habaarka subxaana allahi alcadiim hooyooyinka haugu badnaadaan carruurta way habaaraan aniga nin baa wuxuu iiga sheekeeyey hooyo ilmaheedii oo weliba inan weyna uu ku yidhi aabbihii oo maqan hooyo baabuurka aabba muftaaxiisa yidhi baan kaxayste
dabadeedna way diiday aad buu ugu celceliyey uu ku celceliyey aakhirkii markuu wadnaha cadeeyay ayay ku tiri qaadaha nagu soo noqoni iftaaxi bay u dhiibtay gaari kale weyn baa dul maray inankii oo laba loo kala sido oo qaarka hore iyo qaarka dambe kala go'een ayaa loogu soo celiyey iyadaana alla barigaasi iyadaa habaarkaasi dee xaggeeda uu ka yimi waxaa ka mid a waxyaabaha ilmahaaga baabiinaya fadeexad inaad fadeexadayso ilmahaaga seed u fadeexadaynaysa inaad kuwa kale ku hor caydo ama ku hor canaanato ama ku hor cambaarayso ama ku hor dhaliisho iyadoo cidiba kula joogto ama ku maqlayso iyada lafteeda ah waxyaabaha ilmahaaga burburiya gaalada aynu ka sheekaynaynay caruurtooda iyo tarbiyadooda markay ka warramayaan qaaciiday leeyihiin waxay idhaahdaan praise in public, blame in private. haddaad qof doonayso inaad ammaanto ammaantaada ummadda horteeda ku ammaan haddaad doonayso inaad canaanatana meel gaara ku canaano 9 waxaa ka mid a inaad xataa ugu naseexayso dadka hortiisa annasiixa amaama annaas fadiixa dadka hortooda in qof loogu naseexeeyo iyada lafteedaaba fadeexada iyadoo ay tahay addiinu nasiixa haddana nasiixadii waxay u baahan tahay inaad waqtigii iyo goobtii iyo goortii ku munaasibkeed hesho maxaa ka mid a waxyaabaha burburiya dhaliisha ilmahaaga aad ku dhaliisho sida in badan dhacda buurnidiisa dhuubnidiisa hurdadiisa cuntadiisa qaab dhismeedka jidhkiisa tiraado baalkan baasee aan waxba deeqaynay hunguriga xun waad hurudaa uno hadhiya habeen waad jiiftaa une miyaanad bini aadmi ahayn miyaad bogtaa waa wax badan oo dhaca nebi maxamed tarbiyadiisu maxay ahayd isagoo garanaya munaafiqiintii hor fadhido ayuu lahaa maa baalu qowmin yafcaluuna kada wa kada waa maaha markaasi tarbiyad naajixa